بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. guud ahaan waxaynu ka wada soconnaa in jamhuuriyadda Somaliland muddadan dambe oo dhan ay ka socotay hawshii ururada siyaasadeed ee 10 sanadood muddadii ay buuxsantay la aasaasay kuna aasaasmay xeerka kamida xeerarka jamhuuriyadda Somaliland ee la yidhaahdo xeer number 14 arrintaas ururada howlgalkooda qabanqaabadooda barnaamijyadooda waxa xeerkaasi uu ku waajibinayay oo uu saaraya guddiga ururada siyaasadeed iyo xisbiyada siyaasadeed. marxaladda imika lagu jiray oo ahayd in la soo dhammaystiro tirada waajibinaysa ururada siyaasadeed ee loo yaqaano madax taabashada ee gobolkiiba 6 gobol doorasho laga doonayay inay 10,000 oo qof urur waliba uu keeno sida uu qorayo xeer number 14. sida aynu la soconno barnaamijkaasi wuu soo dhamaaday waxaanu shalayta ku dhamaaday gobolka Sool magaalada madaxda gobolka ee Laascaanood goboladoo dhan uu soo wada maray barnaamijkaasi si nabadgelyo ah buu ku dhamaaday commissionkuna way ku sheegeen shalaytay iclaamiyeen wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradda inta badan la shaqeynaysa ururadaas oo u xil saarantahay xagga nabadgelyada iyaga iyo commissionka doorashooyinka labadaba wasaaradda ugu badan ee la shaqeysa waa wasaaradda dakhliga. maadaama uu soo dhamaaday barnaamijkaasi shirkan jaraa'id waxaan doonayaa inaan maanta ugu bushaareeyo dhammaan dadweynaha iyo shicibka qaranka reer Somaliland barnaamijkaas ka qaybgalkoodii iyo maxaan ku yiraahdayay soo dhaweyntiisii iyo siday ururadu 6 gobolba ay uga qayb galeen barnaamijkaas kunkunka qof madax taabashadooda waxaan marka ugu horeysa bogaadinayaa dhammaan shicibka reer Somaliland ee dhammaan gobolada dalka ku wada nool waxaan bogaadinayaa guddiga qabanqaabada ururada iyo xisbiyada qaranka commissionkaas xeer 14 ku aasaasmay ayaan iyagana bogaadinayaa sida xilkasnimada ee barnaamijkaas ay u soo gabagabeeyeen. waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa ciidanka booliiska qaranka iyo ciidanka booliiska qaranka Somaliland iyo ciidamada qaranka oo gacan iyaguna siinayay ayaan iyagana aad iyo aad u hambaleynayaa iyaga iyo taliyayaashooda qaybaha iyo talisyadooda guud ayaan dhammaantood iyo saraakiishoodan hambaleynayaa. waxaan hambaleynayaa dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha ee barnaamijka kala shaqeynaysay gaar ahaan guddoomiyeyaasha gobolada meerada degmooyinka ee barnaamijka kala shaqeynaya baan iyagana aad iyo aad u bogaadinayaa aad iyo aadna u hambaleynaynaa. waxaanu markaa imika aynu ku jirnaa oo ku sii dhownahay xilligii doorashooyinku ay dhacayeen khamiistii dhawatay golaha dowladda waatii laga ansixiyay miisaaniyadda oo ay ku jirto dhammaan maxaan ku dhahdayay miisaaniyaddii looga baahnaa doorashada ururada iyo doorashada madaxtooyada. dadka reer Somaliland markaa waxaan leenahay sidii tan baa ugu dhawaar adeegteen siday sida nabadgelyada ugu dhacday kuwa dambena si nabadgelyaha inoogu dhacaan siday awalba inoogu dhaqanka aynu lahayn reer Somaliland. qolada ururada ee ku tartamaysay arrintaas ayagana waan bogaadinayaa sida wanaagsan ay xeerarka ugu hoggaansameen ugulana shaqeynayeen qolada ururka aad iyo aad baa mahadsantihiin. saxaafadda Somalilandna waan ugu mahadnaqayaa sidii ay uga qayb galeen iyo sidii maxaan ku dhahdayay ay ugu jireen
ee barnaamijka qaybtooda uga qaateen iyaguna waan hambaleynayaa aad iyo aad baa u mahadsantihin